annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono dawladdan hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne xasan sheekh ka horeeyay asagoo awoodi haysta oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa la iga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa baysu ah dastuurka madaxweyne xasan sheekh waxa ka horeysay dawladeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale أنا أودي كره إن عند رغيب بدن مرة ولا يجوا ليستي ما دحين حس شغان كوريجي واي وحصلنا دعاية عاش مهم كتاسوا هدي ما دحين فرماج أو ما دحين ماذا جعلي هاي حس شغل جعلي هاي أنا جوا جعلها وكل جعليهن لكن جدد وحواي إلا إلى شرعي جيد دستورك هذا ماشي حقا يركفت إنجليزي أنا وحنا هاي ننجب هذا أو wadaada oo xalkiisa ogtihiin marka waa la iga filinaa inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada sameeynaayna talooyin badan waxay soo gaarayaan war waxaan dib isaga reexay baashan hore u soco waxaan dhahay ma sameeynaay laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa la iga reebi karaa laakiin hal shay la iga reebi karaa waxa la iga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaana aan socdo siyaasadda aan socdo islaan ari raacays haday ay wacdo tiraayi maadan ku qanacay inaan u tii kara rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac la soo dhaafay waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yeelay khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay ya ii jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa hadii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso fiirisid muassasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay'adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliyeed inuu intuu fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taasoo saar awood ma u leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadayna arrintaas sheegay waxa cadaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu ay isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidina sax waa haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladda waa dawladda aan ka sugeynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda maamul goboleed maanta
dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal arku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro Jubbaland isma hayaan Puntland isma hayaan galmudugna waxa ka socda wada ogna Hirshabeelle waxa ka socda waa ogna dawladda waxaan uga aamusnay turid aan u turaaya maxaa yeelay waqti ay iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yani inay degdeg ama si khalad wax u halaaban ma rabo dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay barbarto maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideystay xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu barbaro